asalaamu calaykum dhammaan daawadayaal soo dhawaada oo mar kale iyo barnaamijkan oo xiiso badan dhowcan maanta waxaan ka hadli doonaa waa shanta wadan ee afrika ku yaala ee ugu dadka badan mise dadyooga ugu badani afrika ay ku nool yihiin aan ku bilaabo kaalintaydan shanaad waxaa soo galaya waa dalkii afrika ugu horreeyey abid ee lagu qabtay ciyaaraha adduunka sanadii 2010 waa wadan fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed ay keenaan uu ka qaado heesta abid ugu wanaagsaneed ciyaaraha adduunka laga qaado heestaas oo lagu magacaabo Waving Flag waana wadan ku soo jiray midabta koor kala sooc iyo gumaysi bahsanaa ilaa iyo tan iyo 1994 dabcan dalkaas ayaa ah dalka South Africa dalkan South Africa ayaa ah dalka shanaad ee ugu dadka badan qaaradeena Afrika sanadkan si gabaabsiga ah waa 2020 ee mise 2020 ah ayay ku nool yihiin dad tiradoodu tahay 59,560,515 qof taasoo u dhiganta 76 boqolkiiba tirada guud ee caalamka Zulu ayaa ah qowmiyadda ugu tirada badan dalkaasi South Africa kuwaas oo ah boqolkiiba 70 tirada guud ee dadka South Africa sidoo kale South Africa ayaa ah dalka 25aad ee ugu dadka badan wadamada caalamka ana gudba kaalintaydan afraad waxaa soo galaya waa dal ay Soomaaliya aynan daris ahayn hase yeeshee dalkan ay dalka Soomaaliya meelo badan iskaga shabahan mise iskaga mid yihiin dalkan iyo dalka Soomaaliya ayaa 70meeyadii ilaa iyo horaantii 90meeyadii labadooda dawladood aad u dhisnaayeen quwad iyo dhaqaale ku dhaxlahayn qaaradan Afrika madaxdoodu waxa ahaayeen rag aan marnaba la gaban afkaartooda balse wixii ka dambeeyay 90meeyadii waxay labadooda dawladood dibadda saareen dagaalo sokeeye kuwaas oo dalka horseeday inay qabiilo badan isku laayaan kursiga halka hantidii iyo kheyraadkii labada dal lahaa ay dabcan shisheeyo gurtaan tan iyo maantana labada dal loo laayahay rajo soo noolaysa dawladnimadii ay ku dhaxlahaayeen dabcan qaaradda Afrika dabcan dalka aan ka hadlayo ayaa la oran jiray Zaire balse wixii ka dambeeyay 1997 ayaa loo wareejiyay magaca DRC Congo mise Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dalkan ayaa ah dalka afraad ee qaaradeena Afrika ugu dadka badan mise dadyooga ugu badani ku nool yihiin sanadkan si gabaabsiga ah waa 2020 mise 2020 ayay ku nool yihiin dad tiradoodu tahay 9,989,377 qof aan idhaahday taasoo u dhiganta 1.15 boqolkiiba tirada guud ee caalamka Mongo, Congo, Luba iyo Mangabuto Asande ayaa ah qowmiyadaha ugu tirada badan ee ku nool dalkan DRC Congo kuwaas oo ah boqolkiiba 55 tirada guud ee dadka sidoo kale DRC ayaa ah dalka 15aad ee ugu dadka badan wadamada caalamka ana gudbo kaalintaydan saddexaad waxa soo galaya wadan siyaasadda dhan iskaga yareexay dalkan ayuu ka soo jeedaa laacibka u safta kooxda kubadda cagta ee Liverpool laguna tiriyo inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu tayada wanaagsan adduunka 3 sano ee la soo dhaafay waana laacibka lagu magacaabo Mohamed Salah waana dal isla xurguftan oo kala dhaxeeya dalka Ethiopia kuwaas oo isku haystaan biyaha webiga ugu dheer adduunka ee Niilka waana dal Afrika ugu quwadda weyn maantada aan hadlayo dalkan Egypt ayaa ah dalka saddexaad ee qaaradeena Afrika ugu dadka badan mise dadyooga ugu badani ku nool yihiin sanadkan si gabaabsiga ah waa 2020 ay ku nool yihiin dad tiradoodu tahay 102,969,238 qof taasoo u dhiganta 1.31 boqolkiiba tirada guud ee caalamka Masaarida ayaa ah qowmiyadda ugu tirada badan dalka Masar kuwaas oo ah 99.7 boqolkiiba halka inta kale ay yihiin qowmiyadaha sida Abxaas iyo Badaweyne iyo waliba dadyooga soo galootiga ah sida Soomaalida, Suudaanta iyo Itoobiyaanka sidoo kale Masaarida ayaa ah dalka 14aad ee ugu dadka badan wadamada caalamka ana gudbo kaalintaydan labaad waxa soo galaya waa dal xurguftan badan oo soo jireena oo dhan siyaasadeed dhaqaale iyo dhulhaaneed kala dhaxeeyo dalka Soomaaliya waana dal aad ugu xadgudba walina ku xadgudbaya xuquuqda aadanaha ee dadkiisa waana dal dadkiisu yihiin dadyo sabool ah dabcan warunta dalkan ka hadlayo maaha dal kale waa dalka Ethiopia dalka Soomaaliya dariska yihiin ayaa ah dalka labaad ee qaaradeena Afrika ugu dadka badan mise dadyooga ugu badan ay ku nool yihiin sanadkan si gabaabsiga ah waa 2020 ay ku nool yihiin dad tiradoodu tahay 115,440,050 qof taasoo u dhiganta 1
1.74 boqolkiiba tirada guud ee caalamka. walow tiro saxsan aanan la haynin, haddana Oromada, Amxaarada iyo Soomaalida ayaa ah saddexda qowmiyadood ee ugu tirada badan dalka Itoobiya, kuwaas oo ah boqolkiiba 75 tirada guud ee dadka Itoobiya. sidoo kale dalka Itoobiya ayaa ah dalka 12aad ee ugu dadka badan wadamada caalamka. haddana aan gudbo kaalinteedan koobaad aana kaalinteeda ugu dambaysa waxaa soo galaya waa dal dagaalo sokeeyo uu soo daashaday, xukunno military u soo kala dambeeyeen, ugu dambayntiina jihada dimuqraadiyadeed dibadda saaray sanadkii 1999. dabcan dalkan aan ka hadlayo waa dal ku yaala galbeedka qaaradeena Afrika ee lagu magacaabo Nigeria. dalka Nigeria ayaa ah dalka qaaradeena Afrika ugu dadka badan mise dadyooga ugu badani ee Afrika ay ku nool yihiin. sanadkan si gabaabsiga ah waa 2020 ay ku nool yihiin dad tiradoodu tahay 206,720,515 qof, taasoo u dhigata 246 boqolkiiba tirada guud ee caalamka. Hausa, Fulani, Yoruba iyo Igbo ayaa ah saddexda qowmiyadood ee ugu tirada badan ay dhaahdeen dalka Nigeria, kuwaasoo ah boqolkiiba 80 tirada guud ee dadka Nigeria. sidoo kale dalka Nigeria ayaa ah dalka 7aad ee ugu dadka badan wadamada caalamka. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhammaan daawadayaal barnaamijka maanta ah. waa barnaamijkan iyo mid kale aan sano kale ku wada kulan. waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum.